madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka oo dhawaan heshiis rasmi ah looga gaaray madmadowgii doorashada shirkii golaha wadatashiga qaranka. Labada mas'uul ayaa sidoo kale diiradda saaray dardargelinta iyo dhamaystirka arrimaha doorashooyinka oo la go'aamiyay in doorashada xubnaha golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddo 40 cisho ah laga bilaabo 15 January ilaa 25 November ee sanadkan. Gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay madaxweynaha Hirshabelle doorkiisa ku aadan dardargelinta arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa toddobaadyadii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho si xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka, wuxuuna kulankan qayb ka yahay kulamo kala duwan ee maalmihii dambe ula yeelanayay siyaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka. Shalay ayay ahayd markii uu Guudlaawe kulan la qaatay safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Danjire Mehmet Yilmaz, kaasi oo looga hadlay arrimaha amniga, hirgelinta mashaariicyo horumarineed iyo dhamaystirka doorashooyinka dalka.